السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مaalin wanaagsan meel kasta joogtaan insha Allah muuqaalkan waxaynu ku sharxi doonaa 3 calaamadood ama 3 astaamood oo degniin u ah isla markaasna muujinaya in kiliyahaaga ay khatar caafimaad ku soo wajahan yihiin ama se kiliyahaaga ay u soo dhow yihiin inay shaqadoodii joojiyaan oo hawl gabaan. ugu horeyn kiliyuhu waa xubinta ugu muhiimsan ee jirka aadanaha oo haddii uu hawlgab ku dhaco kiliyaha dhammaan shaqada jirka ay wada istaagi karto. xanuunada ku dhaca kiliyaha xilli hore lama ogaan karo ilaa qofka inuu baaritaan caafimaad maro mooye ama qofka inuu isbaaro mooye si kale laguma ogaan karo. balse waxaa jira 3 astaamood ama si calaamadood oo hordhac ah isla markaasna degniin ah oo muujinaya in uu kiliyaha u soo dhow yahay inuu hawlgab ku dhaco ama se kiliyaha inuu ku sugan yahay khatar caafimaad isla markaasna ay muhiim tahay in xilli hore lala tacaalo si markaasi looga badbaado inuu kiliyaha uu ku dhaco hawlgab ama uu shaqadiisa gabo. calaamadahaas ama astaamahaas waxay kala yihiin kaadida oo isbedesha, xanuun laga dareemo dhabarka qaybta hoose iyo sidoo kale kaadida oo lagu arko maadada borotiinka. haddaba haddii aynu usoo laabano qodobka koowaad oo ah kaadida oo isbedesha. kaadida oo isbedesha waxay noqon kartaa markaasi isbedel ku yimaada xagga kaadida oo yaraata ama se xagga qulqulka kaadida oo yaraata ama se kaadida oo isbedesha kalarkeeda ama se midabkeeda oo midabkii lagu yaqaanay ee normalka ahaa midab aan ahayn yeelata ama se wuxuu noqon karaa isbedel ku yimaada xagga urka oo kaadida inay yeelato markaasi ur. sidoo kale wuxuu noqon karaa isbedel ku imaan kara xagga dhiig ama kaadida inay la socoto dhiig. dhammaan calaamadahaasi waxay ku tusinayaan degniin inay markaasi jirto khatar caafimaad oo xagga kiliyaha ah isla markaasna loo baahan yahay in xilli hore lala tacaalo. waxyaabaha sababi karaa in ay kaadida isbedesho xagga midabkeeda waxaa kamid ah in uu qofka uu ku yaryahay cabista biyaha. sida aan ognahay qofka inuu biyo badan cabo waxay ka caawineysaa dhammaan inuu markaasi nadiifiyo ama uu qashin saar ku sameeyo kiliyaha iyo weliba marinka kaadi mareenka. qofka haddii uu cabi waayo biyo ku filan waxaa dhici kartaa in markaasi marinka kaadi mareenka uu markaasi uu ka dareemo ama se inuu dareemo astaamaha ama se waxyaabaha lagu garan karo caabuqyada ama se infekshanada ku dhaca marinka ama se habdhiska kaadi mareenka. cabista biyaha faa'iido badan bay u leedahay qofka kiliyihiisa iyo weliba kaadi mareenkaba waxay ka nadiifinaysaa dhammaan jeermisyada soo gala xubnahaasi. sidoo kale qofka inuu biyo badan cabo waxay u fiican tahay kiliyaha qashin saar bayna ku sameynaysaa waxayna ka sifeynaysaa dhammaan waxyaabaha soo gala kiliyaha iyo weliba kaadi mareenka. haddaba waa muhiim qofka inuu markaasi joogteeyo cabista biyaha ugu yaraan inuu maalintii cabo 3 litir oo biyo ah ama se si kale hadaa u dhigno 8 koob oo biyo ah. haddii qofka uu yahay qof xagga biyihiisa ama biyo cabistiisu ay yar tahay wuxuu markasta isku arkayaa infekshanka ama caabuqa ku dhaca kaadi mareenka ama se waxa loo yaqaano urinary tract infection oo ah infection ama se caabuq ku dhaca marinada kaadi mareenka. qofka hadduu markasta biyo badan cabo ama se biyo ku filan cabo wuxuu ka badbaadiyaa kaadida inay isbedesho midabkeeda, kaadida sidoo kale inay yeelato ur sababtoo ah kaadida markay midabkeeda isbedesho waxaa sidoo kale isbedelaya xagga urkeeda. markasta oo biyo cabistaadu ay markaasi badan tahay ama fiican tahay waa markasta oo kiliyahaaga iyo marinka kaadi mareenka ay markaasi caafimaad qabaan. qofka haddii uu biyaha ku yaraado waxaa kaadidiisa ku badanaysa maadada asidka sidaa darteed qofku wuxuu isku arkayaa calaamadihii caabuqa ku dhaca marinka kaadi mareenka iyo sidoo kale wuxuu isku arkayaa in kaadidii ay isbedeshay midabkeedii ama se kaadidii inay yeelatay ur. haddaba waa muhiim qofka hadduu isku arko isbedel ku yimaada dhammaan waxyaabaha aan soo sheegnay xagga kaadida inuu xilli hore la tacaalo si markaasi xilli hore uu uga hortago intaysan markaasi aysan kusii weynaan. astaanta labaad ama se calaamada labaad ee markaasi degniin ah isla markaasna muujinaysa in kiliyahaagu ay khatar caafimaad ku sugan yihiin oo loo baahan yahay qofka inuusan iska indho tirin oo xilli hore wax ka qabto waxaa kamid ah haddii uu qofka ka dareemo xanuun dhabarka qaybta hoose. xanuunka laga dareemo dhinacyada hoose ee dhabarka ama se xanuunada laga dareemo dhinaca hoose ee dhabarka isla markaasna ay la socdaan ama se ay weheliyaan madax xanuun,
daal iyo tabardari ama teedka oo qofka ku yaraada iyo sidoo kale qofka inuu dareemo amase inuu isku arko dhiig yaraan. Dhammaan waxay keenaysaa calaamadahaasi inay markaasi jiraan cilado ka jira xagga keliyaha amase qofkaasi inuu ka jiran yahay keliyaha, isla markaas lagu baahan yahay inuu tago daryeel inuu raadsado daryeel caafimaad si markaasi xilli hore wax looga qabto cilada jirta. Qodobka saddexaad amase astaanta saddexaad ama calaamada saddexaad ee markaasi degniin ah isla markaasna muujinaysa qofka inuu ka jiran yahay keliyaha amase keliyaha inay markaas usoo dhow yihiin inay howlgabaan waxaa kamid ah qofka inuu isku arko ama qofka in la arko kaadidiisa inay ku jirto maadada borotiinka. Qodobkan ama astaantan qofku ma arki karo ilaa inuu maro baaritaan caafimaad mooye amase qofka inuu iska qaado kaadidiisa isla markaasna kaadida la baaro kadibna kaadidii lagu arko inay markaasi ku jirto maadada borotiinka loo yaqaano. Haddaba haddii qofka uu iska baaro kaadida isla markaasna lagu arko kaadidii inay ku jirto borotiinka maadada borotiinka haba yaraatee waa calaamad markaasi ku tusinaysa in aysan keliyahaaga caafimaad qabin, khatar badanna ay ku jirto una baahan tahay inaad si degdeg ah wax uga qabatid. Dhammaan calaamadahan aynu soo sheegnay oo kala ah kaadida oo isbedesha, xanuun laga dareemo dhabarka qaybtiisa hoose iyo sidoo kale kaadida oo lagu arko maadada borotiinka. Dadka qaar waxaa jira calaamadahan isku arka, qaybna waxaa jira iyagoon isku arkinin baaritaano caafimaad sameeya amase baaritaano caafimaad oo iyagu ay iska baarayaan waxyaabo kale kadibna ay si kadisa iskugu arkaan in kaadidooda ay ku jirto maadadan loo yaqaano borotiinka. Haddii saddexdaas calaamadood qayb kamid ah aad isku aragto ama dhammaantoodba aad isku aragto, inaad xilli hore raadsatid daryeel caafimaad si xilli hore loola tacaalo